اوكي waxaan qaybtii standard icons ka marayna 10 kiisa qaybta ugu dambeysay tusaale waxa laga daleeday standard icon-ka labada amal laga tuuro delete alle waa la titire marka la titire ma tuurmina way isqariyaan way marka qaabkee u soo bandhigay how to restore standard icons qaabkee u soo ceshanay standard icon-ka hadda laga tuuray right click meel ka banaan dhalada personalize kadib maxaa change desktop icons kadib labada xaan ku dhahay way isqariyaan maana ma delete min sida saxda ma delete min apply okay way isqariyaan maana sida saxda uma tuurmin kadib waxaan ugu xigo start menu hadda maqashay ama start button waxa la qaybtan calaamadan leh waxa loo yaqaan start button markii la taabto waxa isku bedelay start menu isku bedelay waxa uu dhahay start menu-gan ama start button waxa ka raadsan kartaa program aaway marka oo la shidayo waadkii waxa soo dhan inta laga shidaa program-kan shido start menu ka dhax shiday notepad aye صندوق مقشيد كرتها صندوق مقعيسا قرانه صندوق مقعيسا يا قري اساكو سو قباي waxa kugu jira markaa okay qaabkee loo soo saaraa markaasina activate start menu to start button qaabkee loo shaqeysiyaa waxa dhaysa click waa falaarta soo jiidaysa dhanka leftiga click dhee activate start menu qaab kale u dheh control escape qaab kale u dhahay window waxa taabanaysa window halaas oo dhan waa activating start menu ama window search na waa la ay taskbar qaybtan waxaan uga hadlaynaa taskbar xalla taskbar waa meeshan u shan kaaga muuqato waa taskbarka waa u shan meesha kaaga muuqato u jeedo taskbar alla waxaan ka helaynaa la start menu ama start button iyo active program macluumaadka noo shaqeynaya keenay programmadan shaqeynaya keenay kadib qaabkee loo taskbarka loo xiraa loona furaa taskbarka korkiisa imaahe right click ku dhahay kadibna lock wuu xiran yahay ma jiijiidi karta hadda waa jiiday imaano ma jiijiidi karta waxaan rabaa inaan ka qaado taskbarka korkiisa imaaha right click kadibna unlock sax ka qaada si kale start button ka intii maad waxaan qoraa taskbar waa kana maxaan qoraa taskbar aan start menu ku dhufanaa kadibna waxa sax saaraysa lock taskbar apply okay waxaan rabaa inaan xiro start menu taga taskbar qoraa taskbar aan start menu ku dhufanaa kadibna log ka qaad apply okay maxaway isma xiraay waay marka ma isxirayso qaabkee drag loogu sameeyaa waa taskbar waxaan rabaa inaan dhaqaajiyo marka la dhaqaajiyo waxa shuruuda inayna xirneen taskbarka korkeeda imaahay right click ku dhahay meeshan hadeena sax ku saarneen waa dhaqaaji kartaa taskbarka hadee sax ku saarantaa qaab kala gooni waaye waa la dhaqaaji karaa laakiin muuska maya hadda muuska isticmaala hadeena inta sax saarneen taskbar korkiisa imaaha leftiga qabana kadib muuska kor u weedaa qaybtan kor qaybta bottom alla top alla right left bottom meesha yaalo ilaa shuruudda maxaa waaye korkiisa imaaha right click inuu lock saarnay log aan saar aan dhaqaajiyo ma dhaqaaqayo waa kor imaaha right click kordha log aan ka qaada kadibna waxaad u dhaqaaji kartaa meel kasta ayaa u dhaqaaji kartaa qaybtaas ayuu noo eegaysanaa